waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan jeclaystay maanta ay tahay Jimce inaan kelmad yar oo ku saabsan Jimcaha iyo fadligiisa inaan la wadaago. Horta maalinta Jimcuhu waa maalin ay ku gaar yeelay ummadda Nabi Maxamed, ummadii hore oo dhanna la dhaafiyey. Maalintan oo kale Nabiga sallallahu alayhi wasallam acmaal ayuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam in la qabto oo xoogga la saaro ayuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo jideeyey. waxaa ka mid ah acmaashaas oo kale in salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam la badiyo. salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam la badiyaa khayraad fara badan iyo wanaag ayuu leeyahay. oo Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay kii igu salliya hal mar waxaa Ilaahay ku salliyaya 10 jeer. kii igu salliya hal mar man salla calayya salaatan waaxida salla allahu calayhi biha 10 aw kama qaal. waxaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay kii hal mar igu salliya hal mar Ilaahay wuxuu ku salliyayaa 10 jeer. waxaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay igu salliya ayuu yidhi sallu calaya igu salliya salaantiinu way soo gaaraysaa meel kastaad joogtaan. qabriga ayaa laygu keenaya, laygu soo bandhigayaa. wuxuu Nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay qofka salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam badiya in laba shayba laga kaafinayo. kow damigiisa ayaa la dhaafayaa, hamiga iyo qamiga haystana waa laga kor qaadayaa. marka maanta oo kale waxaa fiican la badiyo salliga, mar kastana la badiyo, lagu dadaalo sidii loogu salli lahaa saacad kasta iyo mar kasta laguna dadaali lahaa ayaa fiican. markaa waxaa inoo habboon dhammaantiinba inaynu ku dadaallo oo mar walba xasuusnaano oo ilaalino waqtigaan ku salliyayno iyo mar kasta iyo meel kasta aan joogno inaynu badino aynu isu dardaarmana. maantana waa maalin Jimce, fadli gaara ay leedahay, ha lagu dadaalo. intaas ayaan jeclaystay inaan la wadaago. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.